Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear students, this is teacher Adam and this is a new lesson. Let's get started, dear students. So today inshallah I'm going to give you a writing homework in your own words, It is a composition or a writing assignment or writing homework. arday sharafta badan kusoo dhawaada cashir kale cusub maanta inshallah waxaan idin diri doonaa homework ama shaqo guri ka soo shaqeynaysan inshallah waa qoraal wax la qorayaa in your own words adiga qoraya marka cashirkan waxa weeye kanu maxaan ku raadayay la mid yahay cashirkan busy day buu la mid yahay cashirka waxaan kusoo dhiganay waxa la yiri waxa la sameeyay sheeko noocan oo kale ayaad sameynaysaa adigoo sheegaya qof walba wuxuu sameynayo adigoo ka hadlaya maxaan ku raadayay qof walba waxa uu qof walba sameynayo adoo ka hadlaya adoo kale kale you say this is Mr. Price, what is he doing? You need to answer that question. He is cleaning his bedroom or bathroom, whatever it is. Yeah, you talk about what they're doing. You talk about what they are doing. So let's read a busy day. You see the pictures here. There's pictures. These people, they're doing something. And the address is the main street, and the address is 320. Everybody at 320 Main Street is very busy today. Tell a story about them using the picture and the story on page 32 as a guide. So they're saying here, everybody at 320 Main Street is very busy today. qof walba addresska meesha degan is very busy today. maanta way mashquulsan yihiin. Tell a story about them. sheeko ka samee iyaga. Using this picture and the story on page 32 as a guide. As a guide. adigoo sawirkan isticmaalaya iyo adigoo isticmaalaya sawirada adigoo isticmaalaya and the story on page 32 as a guide. sheekada ku taala page 32 page 32 waa ka isku mid weeye ka sheekada baa la sameeyay inta that story. marka you gonna write a story like this. sheeka noocan kala sameynaysa adigoo qof walba wuxuu sameynaya ka hadlaya. Alex Molina, Jessica Harris, Mr. and Mrs. Chang, Mr. Sharp, Party Williams, Mr. and Mrs. Hassan, and then this is Hector Lopez. So adigo sawiranta adigo eegay waxay sameynayaan ayaad sheeko ka sameynaysaa sida page 32 sheeko looga sameeyay dadyogan waxay sameynayaan. addresskana kan wuxuu ahaa River Street 159 buu addresska ahaa. kan addresska waxa weeye 320 Main Street. marka inta shaqo guri weeye waad soo qoraysaan dadana Facebook page-ka linka waa idin kusoo qori doonaa inshallah. we've got a Facebook page ka maxaan ku raadayay sawirkan ayaan soo dhigay haddaan la yiraahdo. marka waxaad samaysaan markaad ka shaqaysaan caadiga shaqeeya sheekada sameeya sheekada Facebook kusoo dirama ama Telegramka mar hore idin sheegay cashar hore idin ku sheegay Telegramkayga inamada waxa weeye English with Aden oo ADEN hablahana waa English with Adam ADAM idana halkaa baad ka eeganaysaan. marka hablaha waa inamadana waa Aden oo ADEN hablahana waa ADAM wayaan. marka kaasaad kusoo diraysaan ama waxaad kusoo diraysaan Allahu musta'an Facebook page baa jira halkan ma kusoo qoraysaan waa Facebook page-ka waa halkaa baad kusoo diraysaan maxaan ku raadayay sheekada aad ka samayseen sawirka. marka sawirkana Facebook aan soo dhigi doonaa haddii la yiraahdo iyo Telegramka waan soo dhigaya. Let's continue. Pronunciation waa ku dhawaaqid. deleted H baa jirta aan la akhriyeyn lama akhrinayo. listen then say it. dhegeyso then say it. she's fixing a car. So the H is cancelled. It is not read. She's cleaning a room. The H is deleted. It's not read. He's feeding his dog. The H is not there. He's watching his windows. The H is not there. He's painting his apartment. The H is not there. She's doing her homework. The H is not there. He's brushing his teeth. The H is not there. She's reading her email. Or she's reading her email. The H is deleted. It's not there. Side by side journal. So there's a journal. book yar samayso. Journaling aad ku samayso. Journal waxa weeye waa book yaro dhacdooyinka maalinta aad ku qorato weeyaan. Journal. It's called journal. 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 Go to a place in your community, a park, a library, a supermarket, or some place else. Look at the people. What are they doing?
Write about it in your journal. Go to a place in your community, a park, a library, a supermarket, or someplace else. Look at the people. What are they doing? Write about it in your journal. Go to a place in your community. Bulshadaada meel ka mid a tag. A park, meel beerta lagu nastaa. Like this. A library, maktabad wax lagu aqrisanayo. A supermarket wax laga iibsado. Or someplace else. Or someplace else. Go to the mosque, you can go to the hospital, you can go to the pharmacy, you can go to the airport, any place. Meel untag. Look at the people. Dadka eg. Look at the people. Dadka eg. What are they doing? Maxay sameynayaan? Write about it in your journal. Arrinka ka qor, journalkaaga ku qor. Buugaaga dhacdooyinka maalintii aad ku qorto, ku qor. Kana waa homework labaad. Kana ka shaqe labadaba waan idinka doonaya hadduu alla yidhaahdo waa idinka doonaya. Chapter summary. Chapter summary. Summary waa khulaaso. Summary waa summary. Chapter summary. Chapter waa cutub. Summary waxa weeye Allahu musta'an waa khulaaso. Chapterkii oo dhan cutubkii aanu dhamayn cutub dhamayn hadda cutubka aan dhamaynay khulaasadiisa weeye. To be short answers. Yes I am. Hal wali are you the doctor? Doctor miya doctor tahay? Miya tahay doctor? Yes I am. Hayawanahay. Yes he is. Yes she is. Yes it is. Yes we are. Yes you are. Yes they are. He she it isbay qateen. I am. We are, you are, they are. Casharka hore usoo dhiganay. Iyagoo la soo gaabshay I'm. So I'm cleaning my room. I'm cleaning my room. He's cleaning his. He waa his. He's cleaning his room. She's cleaning her room. She's cleaning a room. It's cleaning its room. We are cleaning our room. You're cleaning your room. They are cleaning their room. I, my, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their. Key vocabulary. And vocabulary waa erayo cusub marka erayada chapterkan kusoo dhiganay. Brushing my teeth oo maxay? Waa ilkahayga waa cadayasho ilkaha. So you can say I am brushing my teeth. Ilkahan cadayanaya. We are brushing our teeth. They are brushing their teeth. Cleaning his apartment. Apartment waa guri dabaq ku yaala. Guri dabaq ku dhex yaala weeye apartment. Cleaning his apartment. Or cleaning his garage. Or cleaning his living room. Garage waa meesha gawaarida lagu xarayo ama meesha gawaarida lagu cilad bixiyo lagu hagaajiyo. Living room waa maxay? Living room waa qolka fadhiga weeye. Room qol weeye. Yard daarad weeye. Doing her exercises. Exercise waa jimicsiga ama layliska calinka u soo dira weeye. Homework waa shaqo guri. So you can say I'm doing my homework, my exercise. I'm doing my homework. Waxaan ka shaqeynayaa, waxaan jimicsiga sameynaya ama exercise ka shaqeynaya ama homework ka shaqeynaya. Feeding our cat. Feeding on the same way. For example, you can say they are feeding their cat. Or you can say we are feeding our cat or our dog. Waxaan cunto siinayna bisada ayada ama eyga. Fixing your bicycle. Fixing waa cilad bixin. If you say you are fixing your bicycle, waxaad cilad bixinaysaa biskilkaaga. Or you can say you are fixing your car. You're fixing your sink. Sink oo soo dhiganay. Waa meesha lagu farxasho. Waa maxaan ku dhahday suuligana way ku taallaa. Allahu musta'an kitchadana way ku taallaa. TV. You can say I'm fixing my TV. Maybe your TV is bad and you need to fix it. Painting their bathroom. Painting waa rinjiyeyn. Painting. And they are painting their bathroom or their bedroom or their kitchen or living room. Washing my car. I'm washing my car. I'm washing my clothes, hair, windows, car, gari, clothes, dar, hair, timo, windows, daaqad. Greeting people. Markaad qofka salaamayso waxaad oran kartaa Englishka hi. Iska waran oo kale weeye oo farsama. Attracting attention. Qof baad doonaysa inaad soo jeediso. Hore u sheegnay maxaa ku dhahdaa hore ugu soo sheegay how do I say it? Horan u soo yidhi qofka markaad doonaysa inaad soo jeedinta muhiim weeye. Haddaad waxuun iska tiraahdo qofka wuxuu umaleynaya inaad qofka la hadlayso. Laakiin qofka markaad magaciisa sheegto soo jeedsanaya dadna waxaad doonaysa inaad u sheegto ayaad u sheegaysaa. For example, you say Jane, and then she looks at you and you say, oh, what are you doing? Oh, I'm preparing my lesson. Something like that. So chapter 5 is done. We've finished. We've completed chapter 5. So we say chapter 5, bye-bye. We say chapter 5, bye-bye.
please make sure you do your homework. I gave you 2 homeworks, 2 written homeworks. One is for your journal, and the other one is to write a story using the picture. Of course, you use the story on page 32 as a guide. So on page 32 and page 33, both of them, I'm going to send them to the Facebook page, which is here. The Facebook page is there. Learning English with Aden. Learning English with Aden. And then I'm going to send also, yeah, just that. And dear students, our lesson ends there. And I leave you with Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.